بسم الله الرحمن الرحيم walal ku soo dhawow kanaalka socdaal bulsho barnaamijkani haddii uu ku cajabiyey like share iyo subscribe-ka waa xaggeena fikirkaagana waa inoo muhiim ee inoogu reeb commentiga si aad inoo dhiirigelisid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale gabdhaheena السلام عليكم. هذا mahadsantihiin جزاكم الله خير. horta waqtigu waa gaaban yahayo si kastaba dadku waa weynaadeen haddii waxoogaa meel lagu daaho oo arday la noqdo oo wax la dhageysto waxa loogu jecel yahay waa in la isfasaxo marka hadda waa idin fasaxa laakiin waxa dhii raali ahaada idinkuma daahinaayo qadar yar oo kooban ayaan ku soo khulaasaynayna maxaa yeelay waqtiga kulba la haysto intuu leeyahay ayaa la yeeshaa saas daraaddeed ana afmaymaan ku hadalnaa waxaana kooban ingiliijin kaanu macnaha kabka soo la igeli way la egtahay دكتور محمد علي وحو يسي markii xadaradii ugu qoraayay hal saac leedahay wax ku dhow 55 daqiiqo haddana salaada casarka la joogo 55 kama dhimano marka meeshii hal saac loogu talagalay hadaan rabo 10 daqiiqan ka dhigaya sidaas ay ku noqonay marka kabanin ingiliijin kaanu salaasay ku qabataa loo tukada ayaa la yiraahdaa saasaan yeelina insha Allah taala iska raali ahaada موضوع يعني كسابسن مؤتمرك أو عوانك مؤتمرك نسوءه وذلكيسينو طريق النجاة أيها كل جن سيلو بدبادي لها إن لسكولي رجليو دروس بلا قادنا يا دروس من نوامد أكاديمي أوه موضوعية علماء الوقرة أيجيدنا يان من نوامد يعني مقال كيسوع منشه وكتلنا يو ولي بوحى حال دير أو بليغسن دروس تلقى قادنا يو يسوع منشه وهذا ساك مركي برنامج الفرع وذلكيسين أنت علماء مالك الدول استجا إماتي وذلكيسين أنت اللي يرى يضيال أو كسوق يبغالنا وأجيدان أفكار عنكو هلا إنه وأف صومالي أيضا مسلمين بدن أين لجوجان أو هدنا إن أنا أفكار كسي هلا إنه وحي كتوس يسا وحى عن السنة مركز صومالي يعني مركي بنان كجوجان يمركي جودها كجيران weligood ba waxa la yiraahdaa dad kala tagana ma aha dad hawlahooda si fiican u qabsadana ma aha marka waan isla joogaynaa haddaan doonana waan kala duwanaanaynaa hadba si un bay xaaladeenu aanaysaa laakiin hadda waxaan bilownay marxalada bal culimada intii la heli karo hoolkan hadda culimadu ma wada qaado dadku way ka badan intaas laakiin bilow hataa ha noqdee intii la heli karo ha isu imaadeen isu imaanshahaas naftigiisa darsi wuxuu ku jiraa waxaa culimada madan lagu eedeeyaa xataa ma wada fariisanaysaan ma wada sheekaysanaysaan ma midoobaysaan dadweynaha saartaan marka inay ku midoobaan haddii idinka aydan milaysnayn marka tartiib ma idin soo gaarsiinay horta war waan soo dhownahay wax yar noo dulqaata biliis wax yarna yara suga hor aan sii soconaynaa ma waxaan ka liidaynaa wada arteen isboortiga markii dhalinyaradu ay fiirsanaan ciyaaraha hadda adduunka ugu dambeeyo dhamaaday kooxa laga badinaa dhulka isku rafinayaan kuwii laga badiyay garoonkaysa seexanayaan kuwii ka badiyay naftirkoodii madaxa u salaxay maxaa uga badinaysa marka madaxa u salaxays marka meeshan waxa waaye adduunku waa la kala duwanaadaa haddana waa la wada socdaa waxbaa la isku darsadaa waa la wada sheekaystaa marka bal inaan Soomaalideena barno in la isu imaan karo wax la isku darsan karo dad ehlaan nahay dad muslimaan nahay wadankeennii dadkeena banaanka hadda arkaysaano berigii hore banaanka loo yaaci jiray oo lahaa halkaas ayaa wax ka jiraan laakiin hadda maxaa soo dhacday meeshii dayraha laga keenay dayradaas laga keenay waxay keenaysaa mas'uuliyad aan horay yaani aynan u dareemaynin inaan u dareeno dadkeena waxa banaanka u eriyay waa wax inaga dhexdeena ku saabsan hal ina mu'amareeyo waa ti Sheekh Mustafa maxaadariis ay ku jirtay dhibaato la inoo geysto laakiin haddana inaga ayaa sabab u ah mahma kala aan ku daro waxa la yiraahdaa koofurjinka ki ay adiguna kaati macnaheedu waxa weey naanays oo qof adiga kula siman uu kugu caayay adaa u eg maxay moona ku ayni lahayn ba adiga hadana u ekayn lahayn koofurjinka ki ay adiguna kaati marka hadda waxay tahay inay burbur ugu dhaco inuu dhibaato ugu dhacdo inaga u ekaanay waa inaga sababteena ayaa taas keentay marka inaan dib isugu noqono oo dhaahno war dadkeeni banaankana caruurtoodii ayaa wax loo dhigayaa meel ay geeyeen laayiin hadday soo noqon lahaayeen wadankii ay ku soo noqon lahaayeen wadan nabad ay ka jirto ay ku soo noqon karaan ma ah in marka loo diyaariyo oo loona naxo dadkaas inta gudaha ku jirtaan ogaada janno kuma jiraan ayagana
jugta lagu hayaa oo markii yani dagaalada iyo rafaadka intaan in badan oo kamid waxaan filayaa ma aha Kenyadii hore ee Soomaalida ma aha in badan oo kamid ah banaan gudaha laga yimid maxaa meesha idin keenay way marka waxaan soo xusuusay nabiga sallallahu alayhi wasallam ya Abu Bakar iyo Umar waqti kulul oo aan la soo bixin banaanka uu ku arkay qorax kuleelka wuxuu ku yiri maxay idin ku dhacay u soo baxdeen markaas yani nabiga arkay maxaa ku dhacay markaas wuxuu yiri waxa idin ka idin soo bixiyay oo gaajada ah ayaana soo bixisay marka Soomaali waxa yani isu soo wada bixiyay banaanka waa khilaafaadkeena inaga dhexdeena ah dad meel kale aadina ma nihin dhul kalena ma lihin dhulkaas ay naga dhaxeeya qolo la tirtiraayo oo la baabi'inayo ma jirto waa inta baa laga bixi hadana xaq laga soo wareeg waa isku dhex wareegaya marka inaan badbaado ayaa loo baahan yahay marka mawduuca la igu qoray wuxuu ahaa saddex qaybood ka kooban yahay laba qaybood kale waxaan filayaa maxaadariin kale noqon doonaan culimo kale ayaa loo dhiibay ama loo dhiibi doonaa mid ka mid ah oo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu ku tilmaamay saddex arrimood waa lagu badbaadaa saddexdaas mid ka mid ah marka yaan la igu qoray midka la igu qoray wuxuu yahay mawduuc la yiraahdo al-qasd fi al-ghina wal-faqr oo ah saddex lagu badbaado waxa ka mid ah in la dhaxdhaxaysto taajirnimada ama maalqabeennimadana xadka aan laga bixinin oo xadka bax markay noqoto hadii lagu kibro waa lagu halaagsamaa hadii laakiin dhaxdhaxaad ay ka noqoto oo qofka uu fahmo noloshan waxa loo joogo si loogu talagalay oo isticmaalo waa laga faa'iidaa faqrigana waa saas oo asagana yani dhaxdhaxaadnimadu waxay tahay in yani dhulka la seexdo oo eber la noqdana lama rabo yani in yani iimaanka la iska qaado oo qofkan waxba haysan maxaan wax u haysan lahay oo dhahana lama rabo marka taas ayaan mawduucaas wax yar ka soo sheegaynaa waqtiga yar daraadin aan soo koobaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam adduunyadan oo dhan wuxuu ku soo koobay wuxuu ku yiri hal xadiisan soo qaadanaynaa man baata aaminan fi sirbi mu'aafan fi jasadi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وحديثك معنيه سوء ياهي قفكي واغو بريو asagoo dadkiisa ku dhex jiro nabadna ah jirkiisana caafimaad uu qabo maanta wuxuu cunana haysta adduunyo dheefteeda waa loo soo koobay marka feer adduunyada oo dhanba intaas ay lagu soo koobay waana in yani aad yani liibaan ugu jirto hadii la islaam ay wanaagsan tahay diinteenu waa diin marna aan ogolayn in xadka laga baxo oo ah sida ilaahay uu soo dejiyay in loo ahaado sidaasna waa si la tafriid wala ifraad ka gaabina hoos u dhacna ma aha xadgudub xaga kalena ma aha markii maal iyo dhaqaale iyo laga hadlaayana ama markii la bixinaayo ilaahay wuxuu cibaadu rahmaanka ku tilmaamay inay kamid yihiin alladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama kuwa markay wax bixinayaan mana xadgudbayaan oo xadkan bixinayaan mana gaabinayaan meel dhexe ay hawshooda ku wadaayaan aayadka ilaahay wuxuu ku yiri la taj'al yadaka maqlulatan ila unuqika wa la tabsudha كل البسط يعني فقير أو معنا بخيل أو حب حنين هنقنن مد وحنا إسود دافينا هنقنن هذا ساس وضع بحسن هذا مركز دم بيعمل علاقة صور دعاية تأجيني ماذا مركز مغاني ماذا مركز مواضيع إذا لقاها الله يوم يعني وحاقوم من صورتين اللي فهموا حوالها إن لها يستاهي كما ترجمة يسوع قفك لود يبي إنه قفك الكفي عنيه قفك أن لسيننا كما ترجمة يسوع إلهي أكتيس إن لقى نعبيه haddii saa laga dugo sidaas si ka duwan laga dhigo iimaan la'aanta ayaa keento dadka aan ilaahay rumaysnayn maadiin ayaa la yiraahdaa waxay halbaa ka dhigteen ayagu haddii xoolo la siiyana waxay leeyihiin fiicni aan qabna ayaa naloo siiyey ruuxii lagu yareeyeyna xumaan uu qabaa loogu diiday ayay leeyihiin markii la yidhi marka anfiquu mima razaqakumullah qaaluu an nudcimu man low yashaau allahu adcamu marka kaale wax bixiy waxay yidhahdeen qofkan wax hala siiya aad naleedihiin qof yani ilaahay uu nacay oo faqri ilaahay ugu talagalay oo haduu ilaahay jecel yahay oo wax ku falaayo ilaahaygi baa siisan laha ilaahay inuu siin waayo waxay ku tusaysaa inaan waxba lagu falaynin anaad ilaahay meerka kaale wax si wax qof ilaahay ba uu wax siin waayo seen wax u siinayna waa halbeeg ay ka dhigeen anudcimu man law yashaa Allah at'amu qof ilaahay haduu doono uu siin la oo uusan siin anisan u siinaa maana xoolihi waxay ka dhigeen wax fiicni ka turjumaya markaas waxay dhaheen waqaalu nahnu aktharu amwalan wa awladan وما نحن بمعذبين حولنا هيسنا جنة حتى هي النار توحي كقصوا قادين وحلك إبسنا يوم مثلا وحيدها وما نحن بمعذبين نلم عذابا يوم حاجرة نحن أكثر أموالا وأولادا حولنا هيسنا وانقذنا وحيوم الأيام لا يلوش لقب حيو وحيوان بن آدم كويس كده بوريجيو
oo qof hadii xabsi intii wax lagu yara qabto lacag iska dhiibo iska sii deynayo ya cadaabka ilaahina wuxuu ma lacag intii la dhiibo in la iska sii deyn karaayo markaas waxa lisaas ma ah in alladheena kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'an wa ulaika hum waqudun nar yani waxba uma tarayso maalkii waxba uma taray ayaa leeyri marka ma ah yani miisaan ma ah ee waa imtixaan ilaahay wuxuu yiri wa nabluukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un dhowr tusaale ayaan ku soo gabagaynaa aan qaadanaynaa taajirnimo xadkeedii laga bixiyay ama si loogu talo si aan ahayn khasaaraha ay keentay iyo liibaan la'aanta ay keentay waxa kamid ah tusaalahan qisooyinka tan soo qaadano suuratul kahfi oo jimcaha la aqriyo qiso ku saabsan waxa jirta laba nin oo walaalo ah mid mu'min ah iyo mid aan mu'min ahayn xoolay lahaayeen xoolihii ayaa midna beero ayuu ku sameeyay midna sadaqo iyo khayr ayuu ka dhigay kii beeraha sheekhu wuxuu leeyahay bobsiinin waxba ku yaraarsanay anna waxaan ka cabsanahay inaan caajistaano macallin oo kala day kabiir oo kala fasaxay in artaan oo malinay marka haye insha Allah sheekh waad maasantahay marka labadaas nin ee walaalaha ah miisaankii hadaay mid wuxuu u qaatay yani inaad wixii haysato oo ku faanfaanto inay tahay wax fiican markaas beer ayuu samaystay beertii iyo ninkii kale oo wixii sadaqaystay iyo sida uu ugu faanay ayuu quraanku uga sheekay wadlahum mathala ashaab mathala rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min nakhayn wa anabin yani qisadaas oo beerahaas ay laayeen kii oo xoolaha lahaa oo beerta lahaa yaa intuu beertiisii galay oo dhinacada fiiriyo wuxuu yiri ma adunna an tabida hadi abada tan inay dhamaanayso ila ma ahano arintu isku aadantahay kii kala la hadlay wuxuu yiri waxaan iska dhaaftay hadaad beertaada ay kula qurux badan tahay waxa ku fiican inaad tiraahdo ma sha Allah la quwwata illa billah إلهي بقى أود إسكاله يعني إلهي أمهد عريسوت هذا ما شاء الله وحن إلهي بقى يسيه الناس أساسا كون في عناد مركز وديده وحول ما وحن واحد ضمان ما يقلع وحكوا إنه واحد عكرت وحن الدنيا اللي هذاي سمع هاته وحن إنه يكون عفانا عكرت وإلهي أنتوا وحكوا الكسور ذو إنه يكون عفانا عكرت مركز وسيدي نقطة واتي بيرتيسي طبعا أنت اللي قدري اللي جوبي نيجي محوك قدام بمركز دمبه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يعني وحي اسكو ضاعتي وهي باب بعضي وهو شيء معنا فأصبح يقلب كفيه معنا وهو شيء معنا إنك سومالي أنا وحيدا نقف مركو واشي مالك الدون سكر الله استعمالها كو وحيدا قشن أروري كو وحيدا موبايل وقاتي كو وحيدا ينصف كرو قلي هاد بس يبقى ودهاين مركا فأصبح يقلب كفيه معنا وهو شيء قعمه كل الرقي مركا سوحو كشلاي وحي كل عي marka taas waxay noqotay qeynanimo ama xoolo la helay oo lagu xad gudbay qisadaas ayaa tusaale ka ah waxa kale oo qiso soo qaadanayna waxa jiray dad oo beer ay lahan jireen aabahoodna nin wanaagsan wuxuu beertaas xoolaha ka soo baxo saddex u qaybin jiray qayb beertu ku hagaajin jiray qaybna caruurtiisu u dhigi jiray qaybna uu sadaqaysan jiray wuu dhintay marka caruurtiisii ka dambeysay waxay dhaheen qaybta beerta dib loogu hagaajiyo inaga inoo taala waa inoo fiican tahay beerteena ku soo baxaysa qaybta caruurta loo dhigana waa inaga loo dhigi jiray caruurteena u dhigaynaa laakiin qaybta saddexaad ee ahayd masaakiinta la siinaya qaybtaas khasaare ay inagu ahayd odaygu u khaldana halkaas qaybta saddexaad waa inaga inoo soo noqoto waa wixii aan u kala qaybna laba qaybood meeshii aan markii hore loo qaybin jiray saddex qaybood sidee ku heshiiyeen waa suurada waxa ka sheekeynaysa suuratu nuun wal qalam wama yasturun ashaabul janna li yiraahdaa habeenkay tashadeen waxay yiraahdeen baris waxa aan baxno go'aan ku gaareen go'aanka ay gaareen wuxuu ahaa alla yadkhulanna al yawma alaykum miskiin inuu salmaanta beerta imaanin qof miskiin ah dadkaas waxay jireen markii beerta la gooyay odayga fiicnay yaqaaneen markii la gooyay imaan jireen diimuhuna saan bay tilmaamayeen dadku markay beer goosanaan ama haystaan inay wax iska bixiyaan waa tuu xaqo yawm xasaadi ويدي مركا هبين كساس كنت شادين أنت تشنا ينبا هبين نمدي أي تشنا ينبا لو حمو جه فضاف عليها طائف من ربك وهم نائمون هبين كي ببرتي دبيلا قشي ويبا بعض فأصبحت كالصريم وحين نقطة جلنجل أو كلمال أو إبر أو وحبك أولين أو كلا أي نقطة الصباح دي مركا الجاري فتنادوا مصبحين ويسوق واقع صباح هاي صباح وبري أيقول هاي أن يقضوا على حرثكم إن كنتم صارمين سو بيرت أسوق وسنة فانطلقوا وهم يتخافتون إلى آخر الآية مركي ماشي أي تجين وحي أتجين بيرتي أو شالي مركي كتجين بوحدي حالي أي كسر مقناين ساكن إبرة طبعا إلى حالي قاضي وحرن مركاسا وحي كوكب بلا وحي راذن إنا للضالون وحنا وانصور نما بيرتي إن هالكن ما ينعهين وضدي أن سوهيني أيان خالد أصور عني بيرت ماشي معه
markaasaa nin xalay la hadloo fiicnaa wuxuu ku yidhi qaala awsaduhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun miyaan idin dhihin ilaahay imaad u tasbiixsataan ma iska daysa masaakiinta waxooda soo idinmaa dhihin markaas kadib ay isgaraysteen waxay dhaheen waan xadgudubnay laakiin waa goorma waa waqti wixiiba ay dhammaadeen marka xoolaha haddii loo isticmaalo sid xun lagu xadgudbo natiijada ka dhalatahay waa baaba'aas ay suuradda inooga sheekaysay waxaan kala soo qaadanaynaa maalan haninimada ama taajirnimada يعني waxaa loogu talagalay sidii yani sheekh Dr. Maxamed Usmaan oo akhrinaya oo kale intii loogu shaqaysto loona shaqaysto wujuuhda khayrka lagu bixiyo ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى حديثك sidaas uu ku fiican tahay sidaas hadii si ka duwan ay noqoto khasaarahan bay dhacaysaa marka yani munjiyaadka qaybta ku jirta waa qaybta markii khayrka loo isticmaalo oo dhaxdhaxaad ahaan oo la xadgudbin ay noqonayso faqriga hadaan soo qaadana asagana طبعا فقرغو وامتحان اسغنا oo ilaahay dadka uma weynin ilaahay agtiisa waxa yaala wax dhamaanaya ma aha wadii xad qudsiga aad ku aragteen ilaahay inuu yiri dadka oo dhan insi iyo jinni dadkii hore dadkii dambaba haday banaantay soo istaagaan qof walba waxa uu rabo uu weydiisto oo qof walba waxa uu weydiistay aan siiyo mulkigayga waxba kama nusqaamaayo adduunka waxa dad jooga iyo kulli waxba ilaahay agtiisa kuma aha nabi Muuse ilaahay wuxuu weydiiyay ilaahu dadkan saad u quudisaa markaas wuxuu yiri hal canjeera aan baan u qooyaa bis dadkan halka saadinka saaleey halka canjeera la sheegay maxay tahay dhulka waa dhulka canjeera adduunka dhulun baa la degan yahay wax cirka degan ma jirto qof wal meesha uu joogo baa roob loogu shubaa meeshaas uu ka abuurtaa waxa la cunaayo dhan ama kan warshada la galiya ahaado ama kan warshada la galin toos kala cunaade waa wax dhulun ka yimid marka ilaahay marka soo arsaaqad u qaybinayo halkaas muufada ah ama halka canjeerada ah ee dhulka ee balaaran kaan baa dadka loo qooyaa bis qof walba dhinaciisu buu ka abuurtaa ka goostaa marka culays meesha ma yeelan marka hadii dadku dhan wax la wasiin la ilaahay agtiisa waxba kuma yaraadeen mana dhamaadeen saas ay tahayna dada faqri ah maxaa saa loo yeelay marka ilaahay wuxuu waxaan saa u yeelnay walaw basada Allahu rizqa li'ibadihi لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء هدو إلهي أفدين لها دادك ويقول كبري لهاين إلهي حكمة ديسة هذا كسوق دادك هدي تاجر لقى وضع ديقلها دادك ما القبيلة لقى وضع ديقل هدي ما القبيلة لقى وضع ديقل نولش أنا نولنا هاي اللي يسوى ذا الشقين أيوه اللي يسوى شقيين هذا في ردونك كله على سو شقين أيوه روح عن روح شقين الملك هذا مثلا أرضنا وحل براج كلياتك اللي وجه عليها وحاكم عافماتك dhakhtar oo maxaa jira lambar loo soo goostaa lacag dadka qaaday dhahan soo saas ma dhakhtarkaasi asagaas alleehay yani uu fiican yahay saas ay tahay bukaanku uu shaqeeya qof waxa fiican macallimiinta fiican malaha oo dadka fayay uu shaqeeya dhaqaatiirtu waxay u shaqeeyaan dadka xanuunsan maanta oo dhan qof xanuunsan buu la sheekaysan inta laga haya inta ku xanuunaysa waa la soo wada shaqeynaya lacagtii aad siisay dhakhtarka xaqu ka soo wareejinaya bakhaarku kugu imaanay raashinka xaafadda u soo qaado ku leeyahay xaqu uu ku keenay caruurtii iskoolka lacagtoodii waatana haddii marka dadka aan saal isugu dhex wareejin lahayn noloshan mayna isku toosteen marka waa la isku wada dhex wareejiyey markaas qof walba midka kale wuxuu u baahan yahay kan kale loo dhiibay noloshii waxay noqotay marka isku wareejintaas marka in baahi ay jirto nolosha ayaa ku xiran ilaahay wuxuu sameeyay oo maala yaani ma jirto kulli wada xigmad waay faqrigaas adarkaysaana laga wada calaalaayo waa xigmada ku jirto in la isu baahnaado ayay nolosha ku socotaa la kala ganacsado la isdaaweeyo wax la isbaro yaani intaas lagu dhex wareegaya midda kale adduunka aad arkaysaan dadka aan ilaahay rumaysnayn xoolaha la siiyey waliba waa lagu yareeyay ayagu hadda inaga weelada badan tahay ama ayagu weelada badan tahay laakiin ilaahay markuu tilmaamayo way ku yartay waxa uu siiyey maxaa loogu yareeyay ilaahay wuxuu yiri inta hadda haysan waan uga sii badin lahaa laakiin waxa inta hadda uu joojiyay waxa jirta arrin ah waaqic dadka saameyn ayuu ku yeeshaa haddii dadka gaalada yani aan lagu soo daysanaynin oo dadka mu'miniinta ayna sabab ugu noqonaynin inay gaaloobaan inta ay haystaan waa looga badin lahaa walawla an yakuna an-naasu ummatan waahida laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadharun ولبيوتهم أبوابا وصور عليها يتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متى هدي وحالي أن لقى بسنين إن يددكم نغضان أمة واحدة بمعنى إن وذا قالوا بان وحدان سالقى بسنين إنت قالوا وذا قريه هذا ذهب لقى لها هدي لها الدنيا محبق قيمة ملك مؤمنين يسكر على هذا قال هذا ما دام آخر النار لقلنا إنت إلى الدنيا يجوغنا وحال رواسف عين أرى حيستان
وانا لديه دون اخر مركي لجيو اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وتصورع لكن هدي والله سي بدل هدي ان عبسي جيرين مثلا قال قفا هو قالوا بالي ساسو قالوا بابا gurigiisoo dhan waxa lagu dahaanayaa ama lagu wareejinayaa kulli wada dahab hatta qataarka yar hoos laga soo gelinay dahab laga dhigi lahaa hadii saa laga dhigo marka dadkii markay arkaan qofkaas gurigaas wada sarta ah wada dahabka muxuu noqday war shalay galab uu gaaloobay markaas xalay asaga dhan dahab looga dhigay war meesh maxay ugu hayaan anigu dhila anna la igu dhajiyo markaas gaalnimadan waxay noqon lahayd wax la dhiirigelinay u noqon lahayd marka si ayna saa u noqoninba faqri iyo taajir adduunyadan nabiga sallallahu alayhi wasallam in allah yu'di ad-dunya ilahi adduunya wuxuu siiyaa man yuhibbu wa man la yuhib miduu jecel yahay iyo miduusan jeclayn buu siinaa walaa yu'di ad-diina illa liman yuhib laakiin diinta ilaahay wuxuu siiyaa qofku jecel yahay laakiin adduunyada Soomaa muslim taajiran uu jira gaal taajiran uu jira muslim faqiiran uu jira gaal faqiiran uu jira marka adduunyada wuxuu ku saabsan ilaahay wuu siinayaa haddii marka loo wada siin la loo wada waasicin la kulli la baqaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha marka waa la isku imtixaamaya tusaale marka waxa baan soo qaadanayna oo ah dad مثلا فقري ayaa jiray qof مثلا فقر ayuu ku jiray faqrigi ayuu ka baxay xoolo helay xoolaha uu helay ayaa sabab waxay ugu noqdeen inuu si xun noqdo kaas faqrigiisa u fiicnaa tusaale ahaan marka waxa jiray qiso waxa jirta nin leeyahay Thaclaba ninka soo bacd riwaayad waxa laga sheegay ay jirto nin wuxuu ah wax muuna haysanin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu u imaaday wuxuu rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari inuu xoolo isiiyo wuxuu ku yiri in yar oo aad ilaahay ku taqaan ayaa kaaga fiican wax badane maad iska deysid markaas uu yiri waan rabaa ilaahay iiga bari markaas wuxuu ku yiri miyadan raali ku noqonaynin inaad sida nabiga ilaahay oo kale aad noqoto oo marna wax hela marna wax waaya anigu hadaan doono oo ilaahay aan weydiiso buurahan ayaa waxay ii noqon lahayn dahab mana weydiisanaaye sida aniga aan u noolahay inaad u noolaato sidaas miyadan raali ku ahaanaynin markaas uu yiri rasuulka ilaahay ii bari ilaahay waxaan ugu dhaartay haduu ilaahay xoolo isiiyo qof kasto xaq ku leh xoolahaas ayaa wax ka siinayaa markaas nabigu wuxuu ku yiri allahumma urzuq thaclabata mala ilaahay thaclaba xoolo sii bis waxoogaa yar xoolo samaystay xoolihii baa tira batay magaaladii Madiino meeshii labada neef iyo saddex neef iyo ku hayn jiray ma qaadayso waadi aan ka fogeyn magaalada ayuu tagay oo xoolihii badnaa uu ku haayaa markaas salaadaha qaarna uu imaan jiray qaarna muun imaan jirin xooliyaa sii batay uu la sii fogaaday isbuuci inuu maalin masaajidka imaado oo jumcada uu soo tukado ayay noqotay xooliyaa sii batay uu la sii fogaaday jumcii xataa uu imaan waayay muddo markii ninkii la waayay ayuu nagu su'aal wuxuu weydiiyay ma facala Thaclaba warninkii Thaclaba ah muxuu sameeyay xagu ku dambeeyay markaas aan xoolo intuu sameysay arigii iyo wixii uu sameysay intay bateen iyo wuxuu la aaday baadiyaha markaas saas ku maqan yahay markaas waxa soo degtay aayada zakada khud min amwalihim sadaqatan tudahhirum waxa loo diray niman zakada ka soo qaada warqad ayaa loo qoray inta xoolihiisu ay leeyihiin loo xisaabiyo wixii zaka ku waajibto iska keeno waa loo tagay waxa leeyahay yahow zakadaas laga rabaa xoolaha zaka ka keen markaas wuxuu yiri wallahi ma hadhihi illa akhtul jizya wuxuu waxaan hadda weydiinaysaan waa xoolihii gaalada laga qaadi jiray ani ma gaal markaad xoolo keen leediin wuu soo diiday laba nin oo kale oo meesha asna xoolo ku lahaysay oo wanaagsan waa la soo maray way iska soo bixiyaan zakadoodii markii loo imaaday bas nabigu waa loo sheegay in ninkii zakada uu diiday aayadana soo degtay ilaahay uu leeyahay wa minhum man aahada allaha la in aataana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون كوا حكم دتك بلن قادايا هدو إلى حول سيو إنه وحصد قيسان دونان حوله مركي أوصينا بلنتي ويكبحيان ayagana maxay ka qaadeen nifaaqnimo ayaa qalbiga loo galiyay xoolo iyo iimaan hadii lagu isku bedelayaado iimaanka ayaa ka qaalisan xoolaha laakiin dadka xoolaha ay la weynaadeen iimaanka laga qaaday munaafiqnimo ayaa meesha loo galiyay saas ku walaagsan waxa kale oo jiray saddex nin oo reer banu Israa'iil oo reer saalixiinka aad ku aragteen mid wuxuu qabay cudurkan barasta yiraahdo oo macna jirkiisa cadda midna timaha ayaa ka buubay oo timamuuna lahayn midna indhoola ayuu ahaa markaas ilaahay malag u soo diray wuxuu ku wuxuu maxaa jeceshiin mid walba dhibka haystay uu ka sheegtay kii barasa qabay wuxuu waxaan jecelahay in maqaarka ilaahay ii hagaajiyo oo dadka yaani waxyaabaha ay ugu dhibsanayaan iyo cadcadaankan inuu ilaahay iga saaro ayaan jeclaan lahaa maxaa kale xoolaha jeceshahay markaas wuxuu waxaan jecelahay geel
geeli asna ilaahay looga bariyay wuu helay waa loo duceeyay jirkii wuu fiicnaaday kii timuhu ay ka tageen saas oo kale maxaad jeceshahay inaad hesho wuxuu timay in la ii soo bixiyo oo aan ka baxo duruuftan iyo dadkan waxyaabaha igu caynayaan xoolana loo aan jecelahay loodii asna ilaahay looga bari waa la siiyey waxoolay samaysan iyo mid in dhoola ah waxa adna maxaad jeceshahay wuxuu ilaahay indhaha inuu ii soo celiyo ilaahay baa loo bari inii baa loo soo celiyay xoolana ari ayaan jecelahay weli saddexaas marka sa ayay ahaayeen mid wal markii sidii laga bedelay malagii shalay u imaaday suurada bin aadamka isaga soo dhigay ayaa u yimid wuxuu ka soo bilaabay kii barasta qabay wuxuu ku yiri nin musaafir ah waxaanay xooluhu jidku kaaga go'aana neef geela oo aan sii gato oo aan jidka ku maro isii markaas wuxuu niyo alxuquuq kathiira xuquuqda isku leeyahay tirada badan waxa ma haye iska raalahow markaas wuxuu niyo soo maadan ahay ninkii sidaas ahaa markaas ma niyo ninkaadi u khaldaysa aniga ma ah war soodiga faqiirka ahaa ma ah war faqiirnimada sheegaysa maxay tahay xoolana arkayso kaabiran an kaabir ka awow ayaan saa geel u lahaan jirnay war adiga la wuxuu hadaad been sheegayso sidii aad ahayd Allah kugu celiyo kii kala loo tagay oo asna timaha ay aan lahayn markaas sidan oo kale asna sameey uu diiday inuu wax bixiyo asna waxa la sidii aad ahaan jirtay Allah ka dhigo sidii ayay noqdeen kii in dhoolaha ay ariga haystay iyo hadana u tagay wuxuu ku inuu riisi aan jidka ku maro nin musaafir ayaan ahay markaas wuxuu ku yiri xoolahan waa saa sheegayso faqiir baan ahaan jiray in dhoolan ahaan jiray ilaahay baa ii nicmeeyay indheena ii soo celiyay xoolahan ii siiyay intaad dhex gasho intii aad rabtana ka qaado intii aad rabtana ka tag cid maanta gacanta ka qabanaysa ma lehe saas markaas uu anu malag baanahay ilaahay soo diray ilaahay ku barakeeyo xoolaha adiguna imtixaankii aad ku baastay labadii saaxiibada ahana imtixaanka ayay ku dhaceen markay yani faqrigii ay ka soo baxeen ay dib ugu laabteen markii ay diideen inay dhaxdhaxaad ku socdaan oo ahayd war waxaan ilaahay baa shalay ku siiyay cudurka ilaahay baa ka qaaday ilaahay ku aqoonso ayay sidaas noqotay dardaaranka ugu dambeeya waxaan ku soo gabagabeynayaa oo ah war xoolahani waa loo baahan yahay laakiin aysan xadka kaala bixin oo ayna sababku ugu noqonin inaad ama walaalka ku nacdo ama walaalka ku disho ama ayna noqonin qisadan waxay dardaarankan waxa soo jeediyay ninkii oo la jiray Suleymaan al-Qaadi ee Turkiga ahaa wuxuu xukumay xilligaas yani caalamka markii la fiiriyo khilaafadii islaamka ayaa jirtay yani caalamka kala bar ayay xukumayeen markaas markay tii rabbi u timid dardaarankii uu siinay ugu dambeeyay yaa wuxuu waxaan dadkii isugu yeeray wuxuu hal iga qoray dardaaranka saddex arimood ayuu soo jeediyay wuxuu yiri nacashka markaan dhinto nacashka dadka lagu qaado markaan dhintay la sii qaadayo cid kale ayna qaadin dhaqaatiirtaydii ma ogeey dadka ay xambaaraya ay qaadaya waa inay dhaqaatiirtii ay noqdaan oo ani daaweyn jiray haye mid labaadna wuxuu mid labaad waxa sameeysan dahabkii aan aruurinayay ee meelaha ka buuxay ee dahabka ah qaybo kamid inta soo gogoysaan gurigeyga laga bilaabo meeshan ku dhintay laga bilaabo ilaa qabriga intii laga gaarayo jidka aan sii marayno dhinacyadiisa ku daadaadiya oo wada dahabka daadiya xaga ku shuba ilaa qabriga laga gaaro dahabka la daadiyo midda saddexaadna wuxuu markaad qaadaysaan oo nacashka aad saartaan oo isii wadaan labada yada gacmood nacashka ka soo dhex bixiya labada gacmood labada dhinactaad meel u duleelisaan gacmahayga dadweynuhu arkeene banaanka u soo saara hana furnaadeen gacmo oo isku qabsan ha ka dhigina gacmaha la furo gacantan oo furan iyo gacantaas oo furan nacashka laga soo bixiyo labadiisa dhinacyada ha la wado saas qabriga la igu geeyo waxa li marka waayahay waa ballantaas ayada laakiin waxaad noo fasirtaa saddexdan aad tilmaantay maxay ka dhigan yihiin markaas uu leen sakaraada iyo intuu neefta iska soo gooyay oo neef dheer qaatay yaa wuxuu hadda idin sheegaya waxay tahay buu yiri dhaqaatiirtu hay qaadeen oo qabriga hay geeyeen waxaan ka wadaa si ay dadku u ogaadaan dhaqaatiirtu inaysan mowdka celin karin ilandada waxa u malay marka dil isdaaweeyay in la fayoobaanayo marka dhaqaatiirtu inay wadaan waxa way haday wax tarayaan nafta igu celin lahaayeen marka si dadku ogaadaan ma kala ku dara waxa la erin hawal taraw dibshi asturada lahay riyu moogtay dabada saa u taagayeen gadaashooda iska banaantay kuwa wuxuu riyu haday wax tarayaan horta dabada way qarsan lahaayeen bimaana hadii dhakhtar uu mowd celinayo meeqa dhakhtar dhimato taqaana idinka dhakhtarkii ugu khatarsanaa ee wadnaha tashi wixii wadnaba ku saabsan lagala tashan jiray asaa wadnaha u dhintay marka waxaan u yeelay dhaqaatiirtu hay qaadeen waxaan leeyahay dadku inay ogaadaan war dhaqaatiir mowd ma celiyaan mowdkuna waa nihaayatu kulli xayin qof walba meeshaas u dambeynaya mar haday saas ay tahay maxaa la isugu daalina midii kale oo labaad
وأهيد دهب كدولك على قصي دادي أنت عن سي ودان وحيد إنا دتكو إنا وجادان وحول البقى عن حالة وقت كسون حولة جليني هذا ما أنت قف كمية كلا سي وضو أنت سود دارود بولا أنت سود دهب بولا صوما ما أنت محيو فديان سي وجادان دتكو وقتي عن حال أورورين جليني إنه وحبا أوصل أهين وما أنت الذهب كاس هلا دال الدنيا جعيل كدتك هيان ربابين كبابيو متوجو قدام بيسوه كرفنت جعمها هي كسب بحية يجوا عن اسكو حرنين وفتسن مداس محاولة جداول دتكو إلى وجادان الدنيا ذا وحاني معني أنا وجعمه وحبنا نوجرين وحنا كبحني أنا وجعمه وحبنا نوجرين ومركل الإيمان الدنيا ذا يا حولوتي ولا وذا قاونا مركل سؤال لنا مركل اللي منا أنا مرعت يا لسك قدوبا واكس ولا قتري مركز سعادة اللي بانتي كل واحد جرتها القصد في الغنى أساسا ثلاثة منجيات وحالي صدق هاي هايان تقوى الله في السر والعلن إلهي لك عبسه هداد دل الجوكتي هداد كم قنتهاي هي قول الحق يعني حق إن الله الله عديل العريسية هي يدير هاللي هاي إيوه القصد إن حيستو حق مركي تاجر لي هي مركي فقير لي هي أنت صدق اسكوها شو المنجيات هي اللي هذا والجوبت بهذا هدي سال واينا الدنيا سيلو إرياية وما يكون أمانيسا هلك عني السلطانية ويعود أنا ويقدر ماتي مالك وقدر ماذا مين اللي يكون ماتي مركي إلهي كواس أنا كمان دقو هذا وما سنتي هذا نقول هلا هذا جزاكم الله خير إلهي توفيق يعني فجوا ما سنتين سلام عليكم